دوادا تي في بركيسان اي سومالي كريستيان تي في برنامج كان maanta wuxuu ku saabsan yahay ciise masiix waa ilaaha nabiyada iyo dadka oo dhan waxa waa mawduuc aad u wanaagsan waaye waxaan jeclaan lahayn inaad la joogtaan oo aad dhageysataan barnaamijkan wada dhameystirta si aad u ogaataan macnaha dulucda ka dambaysa waxyaabaha aan ka hadlayno waxay yihiin ciise masiix inuu yahay ilaaha nabiyada iyo ilaaha dadka oo dhan iyo ilaaha adiga iyo ilaaha muslimka ilaaha annaka dhan ayaa maanta idin tuseena maanta because markasta oo soo wacdo waxa tirada ma ninba caabudaan ciise masiix waa nabi maxaa u caabudaysaan ciise masiix maxaa ilaaha uga dhiganaysaa ciise masiix inuu ilaahay kitaabka quduuska ku qoran tahay waa hadalkii ilaahna waa ilaahay ayaa ku qoran laakiin waxa maanta ku tuseen oo yaabi doonta maanta aad u yaabi doonta xitaa quraanka inuu inkireen oo ku tusay inuu ilaahay yahay ciise masiix meesha ku tusaana quduuska ku hayna marka dadka ay maqlaan inta badan shaaniya markaan dhahano ciise masiix waxa qalbigooda ku soo dhacayo qof aadami ah bini aadam baa qalbiga ku soo dhacay waana sida loo sheegay iyaga waa sida annaga naloo soo sheegay markaan mugdiga ku jirnay markaan muslimiinta ahayn waxaa naloo sheegay ciise masiix inuu yahay keliya qof oo nabi ahaa addoon ahaa sida addoomadii kale iyo nabiyadii kale u baxeen camal u baxay oo u imaaday uu tagay taasaa laga dhaadhiciyey laakiin xaqiiqda waxay tahay sidaa ma aha waxyaabo kale waaweyn ka dambeeya bal dhageysta barnaamijkan si fiican u dhageysta si fiican u daawada dulucdana ka gungaara markaa runta ogaataana runta idin xoreyso kama hadlayno oo keliya bini aadan waxaan ka hadlaynaa waxa waaye ruuxda ilaah iyo ereyga ilaah waxaan ka hadlaynaa waa kalaamullah waa hadalka ilaah haddaa maqashada kalaamullah markaa maqashid tusaale ahaan maxaa qalbigaa kusoo dhacayo ilaah hadalkiisa ruuxullah ilaah hadalkiisa intuu ka imaadana ilaah hadalkiisa wuxuu ka imaaday asoo xaggiisa ka imaaday marka yaa iskale hadalkan waxaa iskale ilaah hadalkan inuu jir noqday oo dunida imaaday miyaad diidaysaa maya adi laftigaa ma diidi karaysa laakiin ma isuu kaa xirno waayo qof baa kaa dhaadhiciyey waxna waa qalad laakiin waxaa la rabaa adiga inaad doondoonto runta si runtu ay kuu xorayso adiga inaad garato runtuna ay ku ahaato gaashaankaaga marka waxaan idin caddaynaynaa ciise masiix inuu yahay ilaaha keena kiina iyo kan dunida oo dhan iyo nebiyadii hore dhanba waxaan idin saas markaan dhahay nebiyada markaan dhahay waxa waa shaaniye waxaan idin sheegayaa nebiyadii inuu asaga ereyga ilaah ahaa wixii la hadlay asaga inuu ka sarreeyo asaga uu yahay kii uu maray ereyadii ay maqli jireen waa ereyadiisa waa hadalkii ilaah bay maqli jireen hadalkii ilaah markuu jir noqdo dunida imaaday kama uusan bilaabanin markuu dunida imaaday 2,000 sano ka hor laakiin weligii waa u jiray waxaynu aqrinayaa oo noogu bilaabayaa bilowgii cutubkiisa koowaad aayadaha 1 ilaa 3 bilowgii ilaah samada iyo dhulka ayuu abuuray dhulkuna qaab ma lahayn wuuna badnaa gudcurna moolkuu dul joogay oo ruuxa ilaah wuxuu ka dul dhaqdhaqaaqay biyaha ilaahna wuxuu yiri iftiin ha ahaado iftiina wuu ahaaday meeshan maxaan kusoo sheegay aan ka hadlaynaa hadda ad laftaa kitaabka quduuska soo qaado ka soo dhaalan garayso maxaa la yiraahdaa google-ka ama app store-ka ka bilow kitaabka quduuska ama bible-ka aayada ugu horeyso iyo maarto fiiri saddexda aayada ugu hore waxay ka hadlayaan ilaah bay ka hadlayaan haddana waxaa naloo sheegayaa saddex midnimada ilaah ayaa naloo sheegaya oo dadka Englishka ay u yaqaanaan Trinity ilaah aabaha ayaa la sheegay waxaa la yiri ilaah wuxuu abuuray samada iyo dhulka ruuxda ilaahna biyahay dul habaabaysay ereyga ilaahna wuxuu ilaah ku yiri waxaan samaysma waa ay samaysmaan waxa anaga aan samaysana maaha marka bilowgiiba waxyaabaha baranayso ayaa waxay ka mid ahaba saddex midnimada ilaah masiixiyiintana waa aaminaan ciise masiix inuu yahay ilaaha runta ah oo jir aadami soo qaatay oo dunida imaaday si adiga anaga uu inoo baro aabaha kan uu yahay ilaah kan uu yahay inuu na baro marka waxa ogaataan sida iyadoo ay tahay ayaa mar walba waxa naloo sheegayaa waxa dhabta ah sida ay yihiin marka sida iyadoo ay tahay arinka uu jiro ayaa maartay kitaabka quduuska injiilka ayaa naloogu cadaynayaa sida waxa u dhaceen iyadoo anaga aan ognahay kitaabyadii hore inay soo sheegaan in gabar bikra ay uuraysan doonto oo umuli doonto wiil magaciisana loo bixin doono Emmanuel micnaheedu uu yahay ilaah inala jooga sanooyin ka hor inta ciise masiix dunida uu imaanin sanooyin ka hor intaysan maryamo dhalanin ayaa la sii sheegay waqtigii markuu buuxsamay ayaa maryamo malaa'igtii u timid oo maartay soo barakaysay oo nabadaysay oo maartay fariintii soo gudbisay si arinku ahaan doono oo la yiri ruuxda ilaah baa maartay soo hoosaysiin doonta ereyga ilaah baa umuli doonta magaciisana waxa loo bixin doonaa wiilka ilaah baa loo bixin doonaa marka wiilka ilaah xaqu ka imaadana waa ereyga ilaah iyo ruuxda ilaah oo jir aadami soo qaatay oo jir aadami dunida ku imaaday marka ereyga ilaah hadaynu wadin sheegnay erey ilaah markuu wax sameeynayo wax walba ku sameey ereygiisa iftiin ha ahaado buu yiri ahaanshaha waa hadal wuuna ahaaday marka ereygii baan rabnaa marka maryama habkii
ay maartay ay noogu soo bandhigtay inaan idin soo gudbino haddaba ogaada maryamo waxay ahayd gabar quduusad ah oo dhowrsanayd oo ilaahna nimceeyey malaa'igta marka u timid maxay tireen maryamay nimcaha kuu badato waayo waxaa tahay gabar ilaahay uu doortay marka Yohana cutubkiisa koowaad aayadahaas 1 ilaa 3 iyo aayadda 14 waxaa ku qoran bilowgii waxaa jira ereygana wuxuu la jiray ilaah ereygana wuxuu ahaa ilaah isaga ilaah buu la jiray bilowgii wax walba waxaa laga sameeyay xaggiisa oo wixii la sameeyay lama sameeyna isaga la'aantiisa raalahada ereygana jir buu noqday oo wuu ina dhex joogay oo waxaanu aragnay ammaantiisii taasoo ahayd ammaantii u ekayd tanwiilka keliya ee aabbaha nimco iyo run ay ka buuxdo markaysaa ereygii baa waa bilowgii haddaa waa idin soo aqriyay cutubka koowaad bilowgii waxaa jira ereygii buu jiray ilaah buu la jiray waayo markii lasoo sheegay waxaa lasoo sheegay ereygii iyo ruuxaddii iyo aabbaha ereygii saddexdii baa lasoo sheegay markaasaa waxaa la yidhi hadda waqtigan la joogo oo 2,000 sano ka hor ku dhawaada ereygii baa jir noqday oo dunida imaaday ereygii dunidii ka hor intay jiray ayaa hadda dunida ku imaaday jir aadame marka waxaa ogaataan marka in wax jira maartay uu ahaa ereyga ilaah kama uu bilaaban markuu dunida imaaday uu jir aadami uu soo qaatay sababtoo jirka aadami uu soo qaatayna waa qayb kale kamid ah casharadeena waxa ka soo dhageysan kartaan ka soo fiirsan kartaan barnaamijyada anaga aan sameeynay wuxuu u imaaday inuu qurbaan iyo madax furasho inoo noqdo si uu dambiyadii anaga iyo ilaah dhex galay uu inooga qaado ujeedda ayuu u imaaday ujeeddada la yiraahdo qorshaha wanaagsan ee isku talaabta oo ilaah uu ku badbaadinayo dadkiisa kii walba isaga aqbalana wuxuu xuquuq u siiyay inuu noqdo ama xaq u siiyay inuu noqdo caruurtii ilaahay ka dhalan xagga jirka iyo doonista aadanaha laakiin ka ahaaday xagga ruuxadda xagga ilaah ka ahaaday marka qorshe wanaagsan ayaa ka dambeeyay inuu ciise masiix ereyga ilaah jir aadami uu ku noqdo marka ugu horeyso inuu qurbaan iyo madax furasho inoo noqdo way jirtaa iyo ilaah naftigii inuu nabaro ilaah inuu nabaro waatan xirtii ay weydiinayeen laleeyihin aabbaha natus waa nagu filan yahay markaasuu wuxuu leeyahay ma intaasaa idinla jooga idin garanaynin kan anay aabbaha iyo anigu mid baan nahay ereydan ku hadlaayo kuwayga maaha waa kan aabbaha igu jira ayaa iga dhex hadlaaya marka intaasoo dhan waa caddaan bay ahayd inuu anaga aabbaha ina baro ayuu u imaaday inuu ilaah ina baro ayuu inoo imaaday kadibna ma aragtay inuu qurbaan iyo madax furasho anaga noo noqdo ayuu u imaaday marka saddex ma aha ilaah waa mid sax meel walbana noogu taalaa waxaa ilaah dadka la leeyahay reer bini israa'iil oo dhegeysta ilaaheen waa ilaah mid ah waa ilaah keliya haddaba ilaahaas keliya ayaa wuxuu leeyahay awood uu kugula joogo adiga oo aniga igula joogo adigoo afrika jooga adigoo yurub jooga adigoo amerika jooga isku si ayuu noola jooga awooddaas ayuu leeyahay awoodda ruuxiyeen adigu wuu kula hadlaa anna wuu ila hadlaa hadalkiisii ayaa jir noqda dunida imaaday marka ilaah waa kan abuuray cirka iyo dhulka iyo samada ma saddex ilaah ka hadlaya hadda maya hal ilaah baan ka hadlaya kaasoo adiga kula hadli kara kaasoo adiga kula jooga kaasoo wax walban abuuray wax walban sameeyey oo maartay dunidan isku haya marka ilaahay waa ilaahaas waxaan ku garan karnaana waa nimcadiisa iyo run inay ka buuxdo nimcadiisa marka maxaan ku garanaynaa ciise masiix markuu dunida imaaday dad walba iyo qof walba u imaada asaga wuxuu dan ka lahaa iyo wuxuu ka rabo dhanba waa loo dhammaystiray ku gaajaysanaa imaadeen waa la quudiyey ku indhoola ahaa yimid indhahaaga hel baa la yidhi ku curyaana imid istaag baa la yidhi soco ku maartay tuur lahaa imaato markaas waxa la yidhi tuurta ka kac istaag way toosantay dabeeshii wuu istaajiyey marka oo canaantay marka wax walba oo ilaah uu samaynayo ayuu asoo jir aadama wato dunidan ku sameeyey markaasuu wuxuu yidhi aamina shuquladan inay yihiin shuqulada aabbaha igu jira inuu samaynayo haddaa ereyada aydan maqlaynin marka ciise masiix waa ilaaha nebiyada oo dhan waa ilaaha bini'aadamka oo dhan waa ilaaha dunida marka waa ereygii ilaah ereyga ilaahna waa ilaah